Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuhu walaalaha garbahaygo kusoo dhawaada weelkii dunida iyo waxtarkii bulshada. Anigu waxaan ahay Xafsa, youtube-ka aad naga daawaneysana waa Xafsa channel. Alaa barnaamijkan waxaad idin soo gudbisay islaaniga walaashin Xafsayd. Soo dhawaada meel walba aad joogtaan. waxaan allah subxaana watacaala idinka baryaa cimri dheer cibaado suuban allah idin siiyo insha allah. waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. anigu waa fiicanahay alxamdulilaah. waxaa inoo sii socday kitaabkeenii baro 100 xadiis. hase yeeshee intaan u gudagelin darsigeenii maanta ugu horeyn haddii ay tahay marka ugu horeysay aad channelka soo booqatay fadlan subscribe saar. haddii aad hor nool joogteen like saar u share garee asxaabtaada. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay waxaad naftaada la jeceshahay la jeclo walaalkaaga. kusoo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub iyo darsigeenii 61 biidin illaah. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه ضير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة متفق عليه. لا عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يرزع زرعا فيأكل منه ضير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه ضير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة متفق عليه. nabiga nabadgelyin naxariis korkiisa haatee wuxuu dhahay ma jiro qof muslima talaalaya talaalid ama beeraya beerid fayakulu minhu dayrun wixii uu beeraya ama uu talaalaya haddii ay ku cunaan shimbir oo insaanun ama bani-aadin oo ka cuno oo bahiimatun ama xaywaan kale oo ka cuno ilaa kaana lahu bihi sadaqa ay u tahay. nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay ma jiro qof muslima talaalaya talaalid ama beeraya beerid haddii uu ka cuno shimbir wax uu talaalaya ama beeraya oo insaanu ama insaan kale oo ka cuno oo bahiimatun ama xaywaan oo ka cuno ilaa kaana lahu bihi sadaqa ay u tahay qofkaas oo ajri ayaa u socdo. shimbir ha ka cunto ama bani-aadin ha ka cuno bani-aadinkaasoo ha ka xado si xatooya ha u qaato amba si daacadoo loki ha u qaato qofkaas waxay u tahay sadaqo oo ajar ayaa u soconayo. insha allah waxaa rajeynayaa inaa wax badan ka fahanteen xadiiskan qiimaha badan aadna usii sheergareyn doontaan asxaabtiina mar koowaad iyo mar saddexaadba. haddii aad janaalka ku cusub tahay kusoo dhawaa niyad furan iyo qalbi saafiya. haddii aad horanul joogtayna waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka yaga. haddii aad dhamaysatay ha ilaabin inaad like gareyso muuqaalkan muuqaalkiisa xiga. waxaa idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.